السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليق ميل كستا joogtiin soo dhawaada channelkeeni xarunta cuntada caafimaadka walaashin shukri aadan bule asxaabta qiimaha badan ee dhinacooda naga socota soo dhawaada indhahaya inta usii guuda gelin topiceena maanta waxaan naga codsanaa inaad subscribe sameeysiin like gareysiin share gareysiin channelkiina way soo nugu karo maanta topiceena waxa waaye asmaamayaasha lagu garto qofka bini'aadanka marka dhiig la'aan tahay asmaamayaasha ku garanaysid marka hadda dhiig la'aan tahay dhiig la'aan jirkaaga haysid marka waxyaalaha lagu garto dhiig la'aanta waxaa kamid ah qofka bini'aadanka marka ku horeyso inuu dareemo caajis badan oo qofka sariirta kasoo kiceenin oo maanta oo dhan qofka xoog uu lahayn haduu wax yar xitaa qabto mise shaqo uu isla markii daalayo markaas qofkaas wuxuu ogaanayaa inuu qofkaas qof dhiig jirkiisa ayaa ku yar marka qofkaas waxaa la dhahaa anemic waxa waaye marka qofka bini'aadanka uu jirkiisa uu dhiiga gaduudka uu enough ahayn intii loogu talagalin uu jirkiisa dhiiga gaduudan jirkiisa uu wax ka dhiman yahay waaye qofkaas waxaa la dhahaa anemigana waxaa waaye qofka dhiiga jirka bini'aadankiisa dhiiga gaduudan dhiiga cadaa jiro iyo dhiiga gaduudanaa jiro dhiiga gaduudka ayaa jirkiisa ku yar marka qofka markuu shaqada xitaa aado ma shaqayn karo maanta dhan wuu daalayaa dhaqso wuxuu dareemayaa inuu maanta dhan caajis badan hurdo badan waxyaalaha kale lagu garto waxaa waaye isha marka saas dhahdid meesha timaha xariibahana ka hooseyso dhiig badan ma laha ishiisa cadaan waaye sida saan oo kale waaye u jeedin sawirkan ishaada marka saan dhahdid qofka dhiig la'aanta saan ishiisa u eg tahay asxaabta qaaliga waxyaalaha lagu garto hadda asmaamayaasha ku garanaysid inaad dhiig la'aan tahay waxyaalahan hadda isku dareentid oo ishaada asaas dhahdid aragtid ishaada inay saas meeshan tan hadda dhiiga leedahay ta kale laakiin dhiig ma laha fiirsada sawirka kale saan oo kale saan isku aragtid dhiig ma lihid waxaan dhihi lahaa waxaa lagaaga baahan HB-gaaga inuu hada 14 waxyaalaha kale lagu garto waxaa waaye asmaamayaasha kale qofka maanta dhan wareeraya wax yar markuu socdo ama kor u istaago uu wareeraya dad badan waxaa arkay markaas dhahay waan wareerayaa ama jir maxaa la dhahaa dhulka ayaa ila wareegayo wax si fiican muu arkaayo indha madoobaad ayaan dareemayaa cabaar markaan socdo waxba indhahayga caad baa iga fuulaayo asmaamayaashaasna waxay ka mid yihiin asmaamayaasha oo qofka dhiig la'aanta badanaa dadka gabdhaha uurka leh ay ku dhacdaa laakiin qofka oo xitaa dad caadi ku dhacdaa dad badan waxaa arkay dhiig la'aan ah oo maanta dhan idhahaayo waan wareerayaa cabaar markaan socdo waan daalayaa shaqo badan ma qaban karo madax xanuun badan waxyaalaha kale lagu garto waxaa waaye gacmahooda qabow waaye dad I don't know markaa aragtiin asalaantid gacantiis qabow waaye iyo lugahaba gacmaha iyo lugahoodaba qabow waaye because dhiig enough ma laha dhiigooda gaduudka enough ma aha ma buuxa markaas gacmahooda markaas maanta dhan way qarqarayaan lugahana way qarqarayaan qofka markay salaamaan gacmahooda qabow waaye asmaamahaas maxay ka mid tahay asmaamayaasha oo qofka markuu bini'aadanka dhiig la'aan yahay waaye asxaabta qaaligan isla socono waxyaalaha kale asmaamaha kale waxaa waaye qofka wadnaha ayaa qaraacaya wadna xanuun badan ayuu dareemayaa gagagag ku dhahaya markaan wax yar socdo waan neeftuuraya wadnaha laga haya wadnahooda wuxuu qaraacmaa extra la dhahay irregular wuu kasii daran yahay wadnaha inta loogu talagalay isaga uu kasii xoog u qaraacaya halkaas waxay tusaysaa qofkaas dhiig badan inuu jirkiisa lahayn wadnaha dad way xoog u qaraacaya wadna xanuun badan haddaad isku aragtid iyo wareer badan iyo caajis badan markaa shaqaysid oo maanta dhan aad daalaysid indhahaaga markaa fiirisid haddii dhiig lahayn ogow dhiig la'aan ayaa tahay asmaamayaasha waxay asmaamayaasha dhiiga la'aanta qofka markuu dareemayo waxyaalaha kale oo asxaabta qaaliga lagu garto waxaa waaye asmaamayaasha kale lagu garto qofka bini'aadanka markuu dhiig lahayn jirkiisa gacmaha ama jirkiisa way isbedelaan gacanta labada gacmood isku mid maaha gacmo yellow noqonaya gacanta caadiga caafimaad qabto ta kalena waa qofka ama saan gabadhan kale u ekaanaya qofka yellow huruud uu noqonaya wejigiisa ama too pale aad ayuu u cadaanaya cadaan zaa'id ayuu noqonaya because jirkii ayaa ka dhamaaday dhiigii qofka bini'aadanka jirkiisa xaragiisa maqaarka dhiig markuu leeyahay waa guduud waxyaalaha kale lagu garto waxaa waaye chest pain waxaa lahaa shafka ayaa qofka xanuunayo shafka ayuu wuxuu ka dareemaa xanuun aad iyo aad u badan haddaad isku aragtid wadna xanuun haddaad isku aragtid maxaa la dhahaa chest pain waxaa laga wadaa shafka uu ku xanuunayo daal badan wareer badan caajis badan waxyaalo kale lagu gartaa bishimaha way dildilaacaan waxyaalaha lagu kala garto xitaa waxaa waaye la dhahay hadda gacmaha qofka iyo haduu ka qabow yahay iyo lugaha waxyaalahaas dhan waa asmaamayaasha lagu garto qofkaas inuu yahay qof dhiig la'aan ah asmaamayaal kale ayaa jiro oo lagu garto asxaabta qaaliga ah waxaa waaye qofkaas hilib badin ay jirkiisa ka dhacayo muscle waxaa laga wadaa cududaha sida qofka maxaa la dhahaa muruqaha hilib zaa'id
hilibka yani wax badan ka dhacayo soo waxaas oo asmaamayaal hadda isku aragtiin asxaabta qaaliga waxaa tahay qof anemicna jirkaaga dhiigii gaduudka ayaa enough ahayn dhiigga lagugu talgay HB-gaaga ayaa enough ahayn la soco sida tacaal part 1 waa kan part 2 waxay keeni doonaa waxyaalaha lagu cuntooyinka u fiican dhiiga halkaas aan ugu sii gudo baxaya dad ka faa'iideeya sheegareeya saan ugu wada faa'iideysano. Assalaamu calaykum.